UNSOM have also been producing radio drama series. The United Nations has been providing logistical and technical support, and we're confident that the money will be found to bankroll this exercise. During the series of nationwide consultations on various options for an election or an electoral process to implement the electoral process. Those bodies, of course, being the FE8, the English acronym, and the C8, the state level indirect electoral implementation team. The Strategic Communications and Public Affairs Group of UNSOM is organizing a series of 6 workshops for Somali journalists about the 2016 electoral process. The first workshop is getting underway today in Mogadishu, and it will be followed by similar workshops in Baidoa, Kismayu, Adado, Beledweyne, and Gadaway. sida ugu fudud haday noo fududayso aan samaantay sida ugu fudud aan u tabin karno doorashooyinka markaas waxa la ugu xirnaa dacada u shaqeynaya starafin midda Kenya toos ugu xirnay qaabkan oo ilaalin lahayn inaan barano hadii ay qarxay dhacaan hadii ay weerar dhacaan hadda waxa lagu soo kordhiyay oo kaliya konton iyo koow bal inta aan waxba idin la wadaagin waxaan rabaa inaad waxa aad ka filanaysaa tababarkan waxaan ka baran doonaa shakhsiyan habka ugu wanaagsan ee aan u tabin karo doorashada maadaama aan kamid ahay wariyaasha loo process gareynayo inay soo tabiyaan habka ugu fudud ee aan ku tabin karo warbixin sax ah bulshada Soomaaliyeed sidoo kale waxaan ka baran doonaa sida aan ku xalin karo caqabadaha iga hor imaan doona oo caqabada ugu weyn ay noqon doonto cidda aad sida tooska ah warka uga qaadanaysaa ama xogta ugu dambeeya ama natiijada ugu dambeysa aad ka heli karto